بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. maanta waxaan ka hadlayaa xafladda ama dabaaldega ama tahni'ada laysu tahni'eeyo dhalashada saan u ballan qaaday horay. masaladaas horta waa masalo fiqiya, caqiida maaha, waa masalo fiqiya. waxaan rabaa marka ugu horeysa xifdan liamaanat alcilm alamaana alcilmiya inaan sheego masaladu masalo khilaafiya. culimada qaarkood waa diideen oo waxay yidhahdeen waa xaaraam, qaarkoodna waxay yidhahdeen culimada mucaasiriinta qaar ka midana waxay yidhahdeen waa xalaal oo way bannaan tahay. waxaan sheegi doonaa labada qolo walba waxay daliishatay. qolada tiri almancu والتحريم waxay daliishadeen, waxay dhaheen waa tashabuh bilkufaar, gaalada oo lagu dayanayo weeye. marka mana banaana man tashabaha biqowmin fahuwa minhum. nabigaa yidhi sala allahu alayh ali wasalam, walxadiid saxiix, ciddii cid isku dayda inay ku dayato cidda ay ku dayatay bay ka mid tahay. marka lama ogola gaalada in lagu daydo, laakiin qeyd bay leedahay kudayashadaasi, ama meel bay ku guntan tahay. maxaa lagaga dayanayaa gaalada? ka waran umuuraha adduunyada, diyaaradaha iyaga alifay ma lagaga dayan karaa? diyaarad samays, kombyuutarada iyo technolojiga, horumarka dhaqaalaha, ganacsi cusub oo casriya, dhismayaal casriya, labis qurux badan, nolol magaranaysaa shahshaha, ma lagaga dayan karaa? ma arrintaas ma ku jirtaa oo waxba lagagama dayan karo miyaa gaalada? mise qeyd baa jiro oo wixii ku taxalluqa diin iyo caqiido oo bucdi diiniya leh baa mamnuuc ah. masalada asalkeedu ama khilaafka waxaa keenaya taawe. sheekh salmaan cawda xafidahu llah wafaka allahu asra wuxuu yidhi alixtifaal biciid almiilaad الشخصي ليس له أي بعد عقائدي. qofku inuu u dabaaldego ama xafladaysto maalintii dhalashadiisa shakhsiga ah wax cilaaqa ah oo caqiido ama aaminaad la aaminsan yahay diin ahaaneed oo ay ku taxalluqdaa ma jirta buu yidhi. wuxuu kaloo sheegay ana shariicata jaaءat bilmanci waalxadari, diintu inay la timi inay diidayso kana digayso, iyo watawqiifi lilashyaai daat albucdi addiiniy, inay aysan ogolayn in wax lagu daro ama wax laga dhima ay tawqiifi tahay, sidii loola yimi loola kulmay in loo qaato, aan waxna lagu darin waxna laga dhimin. ashyaada diinta ama bucdi diiniya leh, daatu bucdin diiniyin ama daatu lbucdi addiiniyi, kuwa iska leh cilaaqo diiniya leh. laakina alashyaaa addunyawiyati waalcaadaat, laakiin ashyaada adduunyada ah ama caadaadka ku tacalluqa fa ina alasla fiiha alidn waasamax. asalku waa inay bannaan tahay, la ogol yahay, ilaa ida iqtarana biha shayun yumnacu minha mithla atashabuh. yacni haddii ay soo gasho meesha ashyaa lagu mancinayo sababtooda, ama sababtooda darteed loo mancinayo haddii lala xiriiriyo shaygii, sida isku ekaysiin oo kale, mathalan ikhtilaad uu soo galo, mathalan music iyo xaaraan la keeno, mathalan khamro iyo bale lagu cabo xafladii yarayd oo cunug ama qof dhalashadiisa loogu dabaaldegay lagu alcohol lagu cabo. waxyaabahaas lagu xiray baa xarimaya, laakiin asalka shaygu wuxuu ahaa assamaaxu waalidnu. marar badan baan ka hadlay, waxaa taalla waxna waa cibaado, waxna waa mucaamalaad. labadaasu lid bay isku yihiin marka la fiiriyo bannaanaanta iyo xaaraannimada. cibaadadu aslan ma bannaana oo waa xaaraan ilaa
midii sharcigu sharciyeeyey oo ilaahay iyo rasuulkiisa laga soo gaaray sala allahu caleyh waali wasalam mooyee ma banaana cibaado iskama alifi kartid cibaado waxaa loogu talagalay rabbi in lagu raaligeliyo sida lagu raaligelinayo laguma ogaan karo ijtihaad iyo aragti iyo garasho iyo adiga inay wax kula qurux badnaadaan waana masalada lagu manciyo bidcada lama ogola iskama fiirin kartid adigu iskama dareemi kartid salaad lixaad in loo baahan yahay oo salaadu waatay fiicnayd oo 5 ahayde maxaa mid lixaad diidaya ama 4 ragcadood meesha ay 5 maan ka dhigno waa khayr batay lama ogola cibaadadu aslan waa xaraam su-aasha marka la weydiinayo qofkii la yimaada waxay tahay xagee ka keenta ma nabigaa yiri sallallahu alayhi wasallam ma isagaa sameeyey ma isagaa lagu ag sameeyey ogolaaday oo qaraar weeye ma ilaahay baa amray oo qur-aankii ku taallaa haddii la waayo waa bidca man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad qofkii arrintan wax kusoo dara diinta ah oo alyawma akmaltu lakum diinakum maalintii la yiri diintiina waa laydin dhamaystiray kadib wax kusoo dara waa lagu radinaya aakhirana waa lagu diidaya adduunkana waa lagu diidaya waxaa ku saaray taasi waa cibaadada dhinaca kale waxaa jira mucaamalaadka saad u noolaan lahayd noloshaada oo dhan aslanba waa xalaal waana kuu bannaan tahay saad doonto inaad u noolaato ilaa marka laga reebo wixii sharcigu xarimay inaad la timaado maalan cunto waxaa hartaa cuni kartaa doofaar ma cuni kartid haye bahalaha daddilka ma cuni kartid ma cabbi kartid khamri wixii la diiday marka laga reebo cabitaan oo dhan waad cabbaysaa intii la reebay oo la mamnuucay marka laga reebo cunto oo dhan waad cunaysaa intii la mamnuucay marka laga reebo saa doontaad u labisanaysaa labiskii la mamnuucay marka laga reebo libaaska la mamnuucay maxaa ka mid a libaaska caqiidada gaalada ku taxalluqa oo qolo gaalo ah dhaqan leh sida hadda qoladan la yidhaahdo buudhaha oo kale oo intay xiirtaan labada go oo oranjiga a qaata ma banaana aslan mamnuuc weeye gabadhu inay u xijaabato sida gabadha kaniisadda joogta dharka ay qaadato kale ay qaadato dhar gaar oo uniform ay leeyihiin ay qaadato ma banaana amaa wixii libaasoo ka soo haray libaas caqiide aan ahayn oo aan gaalo diin ahaan aaminsan diin kale oo aan islaam ahayn diin aan islaam ahayn aaminsan oo gaalo ah dhaqan caqiide ah oo iyagu ay leeyihiin oo labiskooda lama ogola waxaa intaa wixii ka soo haray oo aan meel diina sal ku lahayn way bannaan tahay birthdayga marka ama dhalashada qolada diiday oo yiri tashabuh bilkufaar weeye waxaa lagu qaydayaa haddii aysan ahayn caqiido wax ku tacalluqa number 1 marka labaad runtii ma gaalo keliyaa samaysa yaa sameeya xafladaha miilaadka ama dhalashada caalamkao dhan baa sameeya maxaa marka meeshaa soo gelaya qaacido fiqiyaa jirta alxukmu yaduuru maca cilatihi cadaman wa wujuuda xukunku wuxuu raacaa cilada axkaam badanoo waxaa jirta cilad ay sabab u tahay maalan khamriga waa la xarimay xukunkaas taxriimka ahi muxuu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay inay caqliga dooriso haddii khamradii marka dhaladii khamrada ahayd ay iyadu ay alcoholkii ka baxo oo ay khal noqoto khal waa la cabaya cuntadaa lagu darsanaya waxbaa lagu karsanaya maxaa yeelay waxaa baxday ciladii oo maxaa yeelay ciladu mukhaamaradii caqligii inay tagsiiso oo qofka ay sarkhaan ka dhigto hadday baxdo taasi maxaa baxaya xukunkii ahaa taxriimkaa baxaya oo la baxaya alxukmu yaduuru xukunku wuxuu raacaa ama la wareegaa daba socdaa maca cilatihi cadaman wa wujuuda haddii ciladii la helo wuu imaanaya haddii lagu sakhraamo wixii xaaraan buu noqonaya haddii lagu sakhraami waayo wuxuu noqonayaa xalaal wuxuu raacayaa waxaa dhuntay xukunkiibaa baxay ciladii baa baxday xukunkiina waa ka daba baxaya marka shaygan hadduu ahaan jiray caado gaaladu ay leedahay oo ah inay ciyaalka hambalya yidhaahdaan haddee 100kii sano hadda ugu dambeysay way ka baxday gaalo gaara oo hadda gaalo gaar oo loo nisbeeyay anigu ma garanayo laakiin haddayba lahaan jireen gaalo lahaan jireen shucuubta caalamka oo dhan baa caruurta iyo maalinta dhalashada u dabaaldega culimaa banaysay waxaa ka mid a hay'atu kibaar ulculamaa ama daarul iftaa
almasr hay-adda fatwada u qaabilsan masar waxa ay yidhaahdeen laa maanica min dalika sharcan diin ahaan wax diidayaa ma jiraan bay dheheen inuu qofku xafladda maalinta uu dhashay farxo loo hambaliyeeyo loo dabaaldego wax diidayaa ma jiraan bay lima fiihi min tadakuri nicmati illaahi cala alinsaani biliijaad waxaa ku jira bay dhaheen wax khayr baaba ku jira oo qofku inuu xusuusto ilaahayna ku shukriyo maalintii uu abuuray oo adduunka keenay maalintuu adduunka keenay oo jiritaankiisa uu sugay inuu soo dhashay maalintaa calaa an yakuuna alixtifaalu khaaliyan min almuxaramaat laakiin waxaa shardigay dhaheen waxyaabaha xaaraanta ah inuu ka marnaado kalikhtilaati almuxaram sida isku darka ragga iyo dumarka ee muxaramka ah kashfi alcawraat in la isqaawiyo wanaxwi dalika mima laa yajuusu sharcan sida alcohol iyo music iyo balaayo la samaysto wuxuu yidhi wastashhadat maxay daliishatay daaru liftaa biqowlihi tacaala xikaayatan can sayidina ciisa calayhi salaam ilaahay qur-aanka markuu ka hadlayay nabi ciise calayhi salaam markuu la hadlay dadkii hooyadii u timi oo ay tiri isaga la hadla aniga hayla hadlinin oo ay lahayn kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynama kuntu waawsaanii biالsalaati wالzakaati ma dumtu xaya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا آية سيدلي شدين لما تقول يدو شيء ده هاتو ما نتان الشيء وفرحصان هاي إلهي سبحانه وتعالى وكم هذينية إلهي وحان كبر يوم أمان قليو ما ننتهى وحان كلو إلهي كبر يا ما ننتهى دينتو إنو أمان قليو maalinta uu isoo saari doono anoo noolna inuu ilaahay subxaana wa tacala inabadgeliyo baan rabbi weydiisanaya marka maalintiisii uu dhashay maalin macnaa agtiisa kale oo qiimo kale inay tahay bay lujnadu daliishatay waxay kaloo daliishadeen xadiidkii saxiix muslim ku yaallay can abi qataada alansaari radiallahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam su-ila can sawmi yowm alithnain maxaa maalinta isniinta u soontaa ayaa lagu yiri markaasuu wuxuu ku yidhi daaka yowmun wulidtu fiihi war maalinkii lay dhalay weeye maalintaasi wuxuuna yidhi wa yowma bucithtu waana maalintii laysoo saaray ama wuxuu yidhi aw unzila calaya fiihi maalintii wax laygu soo dejiyena iyaday ahayd halkaa waxaa ka muuqata bay yidhaahdeen fa ashaara bidalika nabigu sal ll slam arrinkaa wuxuu ku ishaaray ila almacna aladii yaqtadi alxukmu arrinkaa aanu daliishanay wuxuu ishaarayaa nebigu arrinka xukunka aan daliishanay ana yowma mawlid alinsaan huwa yowmu nicmatin maalin nicmo inay tahay tuujibu ashukra calayhi qofka ku waajibinaysa inuu ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaa ku shukriyo lain shakartum la asiidanakum marka waxay sheegeen inay tahay nicmo ilaahay qofka ku manaystay nebiguna maalintiisii uu xusay uu dhashay oo ahayd isniin su-aal baa timi qolaa ii soo qortay maxaad u diideen caruurtiinana maalintay dhasheen waad xusaysaan waa farxaysaan tii nabigana waa diideen sal alla ly slam marka waxaa la yidhahdaa qiyaaskaas qiyaas maca alfaariq baa la yidhahda nebiga waxaa ku taxalluqa calayhi afdal asalaatu watasliim waxaa ku taxalluqa ama ku xiran oo cilaaqa laleh diinta waxaa laga baqayaa cibaado waxaana loola jeedaa cibaado ilaahay in lagu raaligeliyaa la rabaa oo cibaadaa loola dan leeyahay laakiin middaani waa maxdu shukri lilah subxaana wa tacaala iyo in layska farxo iyo qofka in loo hambalyeeyo waalidku inay farxaan maalintii ilaahay ilmo ku manaystay inay tahay maalin weyn oo adduunka uu ilmo ilaahay subxaana wa tacaala ku irsaaqay nicmooyinka ugu waaweyn oo qofka la siiyay ka mid tahay awlaadu yahabu liman yashaau inaathan ilahay wuxuu ka cabiray hiba iyo gift qofkuu doonu u hibeeyaa inaathan gabdho kuwo kale wuxuu siiyaa dhukuuran wayajcalu man yashaau caqiima yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijhum dhukraanan wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliyun qadiir ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu doono wuxuu siiyaa wiilal kuwuu doonana gabdho kuwu doono waa isugu dara kuwu doonana caqiim buu ka dhiga oo madhalays buu ka dhigaa caruurba ma siiyo
marka maalin ilaahay ilma ku siiyo aad faraxsan tahay weyn inay tahay oo aad ku faraxdo wax diidaya ma jiraan. waxaa ku saaray saan horey u sheegnay ku dayasho gaalo meesha ma taalo. gaaladee lagu dayanaya waa kuwee gaaladaas? ma westernka, ma easternka, ma hinduuska, ma buudhaaga, ma muslimiinta oo caalamka joogta yaa lagu dayanaya? dadka oo dhan baa sameeya. marka waxay ka baxday caadadaani, taxawalat min kowniha caada khaasa bilqowm haddayba jirtay qolo gaara khaas ku ah, fataxawalat ilaa caada caama ummadda oo dhan mid u dhexaysay noqotay. waxaa tusaale u ah oo taa la mid a maalan tayga la xirto. waxaa jirtay xilli la oran jiray cuqdatulkaafir, ma fogeyn, guntintii gaalka oo aan culimmadu ay fatwoon jireen aysan bannaanayn. muslim iyo gaalaba waa la qaataa. waxay ka baxday bikowniha khaasatan biqowmin khaas, waxay noqotay caado caama. marka maxaa baxay? ciladii baa baxday lagu xarimayo oo ahayd inay qolo gaara gaar ku tahay, tashabuhana aan la ogolayn. haddii marka ciladii la waayo oo ay meel walba taallo, cid walba ay qabto, muslimiintoo dhan ay gashatay oo ayba noqotay dharka iliidku ay gashadaan, dadka madaxda ah iyo dadka dhaqaalaha haysta iyo dadka ladan iyo dhar ay gashadaan xafladaha lagu tago oo magaraha ay noqotay, waxay ka baxday mandarkii hore lagu eegayay oo ahaa qolaa kaga dayanaysa. marka taxwiil baa ku dhacay. shayguna hadduu zuulo oo bedelmo dee xukunkiisina waa bedelmaya. maxaa loo xarimay markii hore culimmadu u diideen? waxaa loo xarimay inuu ahaa qolo gaara dhaqan lagu yaqaan, laakiin hadda dhaqanka waa ka baxay, meel gaaro aaday. caqiido gaara oo ku taxalluqaana ma jirto. niman xag jiraa baa jira, wadaadada qaar xag jiro waxaa jira yidhaahda saliib baa laga wadaa. saliib see looga wadaa haddaad tirahda waxay kuleeyihin halkan waa meesha saliibku isaga yimaado, hoos xarigaan dheerna waa qaybtii hoose, oo qaybtii kore meeday madaxaagaa noqonaya dheh, oo madaxaygu hadeerba waa igu yaallaa, garbihiina waa igu yaalla. saliibku asal ahaan sooma hayn qof saa loo kala taagay sooma hayn. soo anigu weli qofkiima annama xaaraan baa noqonaya. yani waa iska xag jirnimo iyo wax adadkayn iyo wax walba waa xaaraan in lala boodo oo lala duulo. sheekadu intaa wey. marka masaladii diin ahaan asal ahaan ta'siiskeedu waa sidaa. wax maanic ah oo ku soo arooray oo diidaya oo aan ahayn culimmada tiri tashabuh bilkufaar oo dee aan xaqiiq ahayn oo aan jirin. hadday jiri jirtay hadda aan jirin unbaa jirta, laakiin wax masale ah oo kale oo ku soo arooray ama xadiis ama qur'aan oo mancinaya ma jiraan. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku yiri qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. yacni ilaahay subxaana wa tacaala ha ku farxeen wixii uu siiyo fadliga iyo karaamo. marka qofka inuu farxo oo anigoo waarida aan ku farxo ilmihii ii dhashay, maalintuu ii dhashay, maalintaas aan xusuusnaado, meel ay iigu qoran tahay, qalbigayga ku weyn tahay, shukran lilaahi subxaana wa tacaala. maalin kasta oo xilligaa la gaaro, sanad kasta oo xilligaa la gaaro aan soo xasuusto. waxaa la mida ciidul watani. ciid maaha, ciid islaamka waxaa waa laba ciidood. ciidul usbuucna waa jumcada, laakiin ciid maaha. laakiin macnahay la wadaagtaa oo wax soo noqnoqda. waddanka maalintii juulaay 1deedii in la farxo waxa diidaya maxay tahay? waa un xagjirnimo waxa diidaya. ma aha caqli iyo diin midna maaha, caqli iyo cilmi midna maaha. wax diinoo soo arooray oo diidayaana ma jiraan, laakiin waa un dhagdhag iyo xagjirnimo aan loo baahnayn. waxaa la mida maalin xisbi la samaystay oo xisbi la abuuray, maalin uu madaxweyne ku guulaystay, xilka ku guulaystay oo uu xafladaysanayo marka la gaaro xilligeedii. wax maanicoo diidaya ma jiraan. qofkaasi wuxuu ku farxayaa maalintaas uu magaranaysaa guushaas gaaray, maalintaas uu farxaddaas helay, maalintaas ilaahay subxaana wa tacala u kala kiciyey inuu xasuusnaado oo maalintaas xuso oo maalintaa farxo. oo markaa haye maxaa la sameeya? waxaa kaloo kuu dheer dadka dibadaha jooga oo qurbaha ku nool oo annagu aan ka midna westernka oo ciyaalkii ay masaladaani masalo weyn ka tahay. annaga tvgaaba maalin naloo ka soo hambaliyey dhowr jeer. ciyaalada waa la dalbaa, waa la qoraa, waa loo diraa, hebel baa maalintaa dhashay. maalintaa marka la gaaro ciyaalo tiro badan oo loo soo qoray magacyadoodii bay u soo hambaliyeynayaan. hebel
waa maalintuu dhashay happy birthday 5 baad noqotay 4 baad noqotay 3 baad noqotay wax maanic ma jiraan oo diiniya marka masaladaas maadaama aysan jirin wax maanic oo diiniya way bannaan tahay dadka dibadaha jooga caruurtii oo la kaxaysanayo oo la wadayo hadda annaga caruurtayadu iyagoo islamic school dhigta ba xaflada looga yaraa birthday ma ogolin inay aadaan haddaan marka u diiday xafladdii inay aadaan kuwa babliga dhigta iska badaa warkooda xaafadaha la aadaya ma ogolin marka annagu inay ciyaaladaas iyo dadkaa dhex galaan haddaad gurigiina marka ku xanibtid oo u diidid haddee ilmuhu kaa cararaya waalidiinta marka waxaan leeyahay waxyaabaha yaryar oo aan aslan diin kasoo jeedina kasoo jeeda adkaan culimadu waxay u qaybsataa 3 qaybood niman mutashadidiin oo wax walba xaaraan agtooda ay ka tahay iyo niman mutasaahiliin oo wax walba waa xalaal yiraahdo iyo niman dhexdhexaad oo muctadiliin oo wixii xaaraana xaaraan u yaqaan wixii xalaalana xalaal u yaqaan wixii ma garanaysaa mutashabihaad ahna ka carara oo ka dheeraada nimanka iyaga ah oo muctadiliinta oo dhexdhexaadka khayrul umuuri awsatuha uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ma ujeeda nimankaas culimadaas ma ay diidanaa waxyaabo badan oo aysan diidanayn baa dadka loo diiday khaasatan mujtamaca Soomaalida ah waxyaabo badan baa lagu qafilay waxa ka yaaba kuwii dadka laayay oo dhiigii cabka oo xaaraamiinta ah xaaraanta ku koray oo ay dhici karto guriga uu degan yahay inuu isagu lahayn oo cuntada cunaya uusan lahayn oo soo dhacay oo taleefanka uu sito commentiga ka soo qoraya ay tahay miduu soo boobay inuu soo qoro arrintaas xaraan way yani wuxuu soo xasuusiyaa nimankii khawaarijta la oran jiray oo xag jirka ah oo dadka ku leyn jiray saxaabaday leynayeen ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxay dhaheen bay ma ka bixiyeen la dilay oo accidenta la u dhintay bay ma ka bixiyeen saxaabadii rasuulkana waa leynayaan marka wax la yaab laha iska jira ummadda cuquusha iyo garashadu marar badan waa mackuus way ku dabagedisan tahay marka qadiyadan waxay ka mid tahay qadiyadaha la adadkeeyey waxaa ka mid a timaha in la madoobaysto wax maanica ma jiraan oo diidaya in la xarimo la yira xaaraan way looma dhawaan karo waxaa kaloo jiraan rabaa inaan wadaadada u sheego Soomaalida ah culimo waxaa jirta dhan oo aaminsan masaa'ilka ta'diibka iyo edbinta ah oo maaragtay yani aan cibaadada iyo caqiidada ku tacalluqin aslan ba nahyiga ku soo aroora waa nahyu tanziih taxriim maba gaaraba culimo leh baa jirta oo macruufiin oo la yaqaano oo ajilla marka in la adadkeeyo wax walba walan yushaada addiina axadun ilaa galaba addiinu yusrun ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadun ilaa galaba diintu way fududahay qofkii isku adadkeeyana way ka qaalib noqotaa dibadda uga booda lama rabo marka in la adadkeeyo hala dabciyo yassiruu walaa tucasiruu waa amar nabawi sala allahu calayh wasalam war fududeeya oo ha adadkeynina wixii marka aan caqiido iyo cibaado ku tacalluqin ee mucaamalaad ah ka daaya adadkeynta oo ummadda yaan lagu dhibin waxaan xasuustaa wuxuu yiri wadaad halkaas qofkii xiirta kelmada aan oran karin dhalinyarada halkaas timaha ka gaabiya oo kor u dheereeya oo ay dhici karto inay qasci ku dhaceen qascigii laftigiisa ay ku dhaceen manhiyun canhu ah la diiday inuu yiri isagu waa noocaas oo kelmad khariban oo dadka jirkooda ka ganacsada uu isticmaalay maxaa ka keenay waa dhaqan laysu soo dhiibay mutadaawal ah oo laysu soo dhiibdhiibay oo ah wax walba in la adkeeyo wax walba la yidhaha haw dhowaan xagga hag mari naga la yidhaahdo wadaadada anigoo jecel oo asxaabteyda ay yihiin in wax la adadkeeyo waa uga digaya waana ka waaninaya ka daaya ummadda yaan diinta la nacsiin oo aan lagu dirin yaan lagu adadkayn ma garanaysaa waxaan arkayay qof baa wuxuu leeyahay xijaab gabar qabta oo meel maraysa baa leey ma xijaabna markaasaad leedahay oo maxay u xijaabnaan weyday waxaa leeyahy kii kaakiga ahaayo inta la tolay saas halkaa ku tolnaa ma wadato oo ma jirkeeda qaribaa la yiri mise dhar gaara qaadaa la yiri yani wax la yaab le weye xijaab waxay u yaqaaniin kaas keliya adag
maybe inuu ugu fiican yahay, maybe inuu dadkiisa ka mid yahay, inuu ka astur badan yahay, laakiin qofta asturan oo jirkeedii qarisay oo aan oogadeeda ka bannaanayn maa cada alwajha waalkafayn in la yidhaahdo muxajabad maaha, waa tashadud wax macnaa aan diinta kusoo kordhinayn. libaas gaaro islaamku uu soo dejiyey oo amrayna ma jirtoon ahayn gabadhu inay xijaabato. xijaabna waxaa la yidhaahdaa qarsoodi, oogadeedii wixii ka dhigaya qarsoodi oo aadan ka dhex arkayn, mara aadan u jeedin, oogadeedii aadan uga dhex jeedin oo si turu ahayn, sida dirac bahalka yidhahdaan oo doqonka ah aan ahayn, ama aan ku dheganayn oon oogadeedii soo saarayn. dhar caadiya gabadhu hadday qabto oo intay shukad gashato oo khamaar xirato oo oogadeedii qarsato oo wejiga keliyii uu ka muuqdo, halkaasna timihii iyo waxa dhan u qarsoon yihiin, maradaa dheerna qabto oo ilaa halkaas u xiran oo gacmeedii calacalaha keliya ka muuqdaan, baa laleeyahy xijaab ma qabto. maxana waxaas waa tashadud weeye. diintuna uma baahna tashadud, waxay rabtaa tartiib tartiib iyo yusri bay rabtaa. yusrigu waa sharaf, waa nebiga da'bigiisii sal alla ly salam, maa khuyira rasuulullahi sal alla ly salam bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun ithma. laba shay haddii nabiga la dooransiiyo, mid fudud iyo mid adag, labadooda haddaysan shar ahayn labaduba khayr yihiin, kan fudud buu qaadan jiray, kan labada fudud. dad baa waxay arkaan kaa labada fudud qaatay inuu diintiisa daciif tahay uusan naf lahayn. maya, adigaa naf lahayn, iyaamaa dhegdheglaynaysaa, hadhowna waad ka durdurinaysaa, salaadaba inaad iska dirsaa laga yaabo. kuwa tashadudka ku caanbaxay waxaa lagu yaqaan aakhirka inay soo kufaan. waana xadiid nabawiya sal alla ly salam, likulli camalin shira walikulli shiratin fatra faman kaanat fatratuhu calaa hadyi calaa sunnati faqad ihtada. ninka camalka marka ugu horeysa wuxuu ku bilaabaa xoog iyo adayg iyo tiro badnaan buu ku bilaabaa, aakhirkana wuu soo kufaa, wuu soo dabcaa. ninka marka kusoo kufa meesha sunnadaydu tahay, intii aan rabay anugu aan sheegay kan kusoo kufa, ninkaas waa rooyahay, waa qofka hanuunsan. qofka hoos uga dhaca de waa dhumaya. marka waxbaha isku adkayn wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu sahlay oo diinta ahayd oo magaceedu yahay samxa, diin samxa ah oo magaranaysaa ilaahay uu yiri way ogoshahay, wax walbay ogoshahay, wax walba waa bannaan yihiin. markii la joogo mucaamalaadka, kullu shayin xalaal ilaa maa xaramahu sharcu, wax walba waa xalaal. waxaan ka hadlayna marka ma cibaada mise waa mucaamalaad? waa mucaamalaad. mucaamalaadka marba mucaamalaad hadday tahay waa xalaal ilaa inuu sharci soo arooro mancinaya mooye. alcaadatu muxakama waa qaacida fiqhiya, qawaacidda kulliga ah oo laysku waafaqsan yahay, culimadoo dhan qaateen oo shantaa bay ka mid tahay, iyadaana ugu horeysa. waad aragtay qur-aanka waxaa ku jira waxaas iyo waxaas bilmacruufi yaxkumuhu dawaa cadlin minkum. ma garanaysaa yani waxaad arkaysaa aayaad aad u tiro badan oo baqara iyo ku jira, suuradaho dhan ku jira, anisa iyo maa'ida iyo, oo laleeyahay waxaa xukumaya curfiga. waxaas qiimaynteedu waa inta dadku yaqaanaan. dadku marka hadda maxay yaqaanin happy birthday inay normal tahay. anigu waxaan radio Soomaaliya iyadoo laga qaado waa habeenkii dhalashadaada hambalyan kuu soo hibaynay, habeen wanaagsan, habeen wanaagsan. kolley intay ahayd ma garanaya hadda taariikh ahaan, laakiin xilligii Soomaaliya dowladdu ka jirtay yaan maqli jirnay. macnaheedu maxay tahay? Soomaaliya oo muslim oo shacaba waxay ka ahayd wax caadi ah. inta iyada